inaan wax yar ka iraahdo arrimaha maanta ka socda Soomaaliya marka xamar ka socda arrinta koowaad waa arrintan gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ku dhawaaqday oo ay keentay proposal ah iyada ra'yigeeda runtii oo ah ku darsi 9 bilood ee ku darsi 13 bilood sidaan aaminka dhaweed ka eri BDRC aniga waa ii muuqatay extensionkaas uu imaan doono sabab badan awgeed waa mid koowaad mar haddaan political agreement jirin u dhaxeeya dawlad goboleedyadii iyo dawladii dhexe meesha uusan jirinin mar haddii baarlamaankii uu noqday baarlamaan ama la leeyahay isagiiba la yeeshay ama isagu waxaan dantiisa shakhsiga ma ahan dan uma aan ka shaqayn haddana aad moodo leadership xun inuu hadda uu baarlamaanka hogaaminayo guddiga doorashada oo ayana saa hore u sheegay noqday entity ayadu danteedu self serving interestkeeda ka shaqeysa ay noqdeen iyo beeshii caalamka oo disinterested ah oo Soomaaliya dhanna ku daashay dhanna aad moodo inay sadda kala jeclaynba intaas markii la isku soo daro waxa ku muuqanaysa in runtii haddaan si kale wax isu bedelin in ay dhib badan tahay in heshiis la gaaro waan jeclaan lahayn waana ku boorinayaa dhan walbaaba in heshiis la raadiyo si marxaladan kala guurka dalka si wanaagsan ayadoon dhibaato dhicin in looga gudbin lahaa sababtoo ah waxaan muuqan hadda marxaladii tan ka horeysay oo 2016 runtii dawladda madaxweyne xasan sheekh isaga ayaa rabay doorasho inay dhacdo isaga ayaa ku darsi diidanaa ka soo horjeeday maanta way ka duwanta marka haddii leadershipkiina uusan qiyaasi karin oo uusan dareemi karin temperatureka iyo heerkulka dadku meeshuu marayo uusan la soconina dhibteeday leedahay waxaan kaloo rabaa inaan kelmad ka iraahdo ugu dambeyn arrintan laga hadlayo oo ah matalaadda gobolka Banaadir waxaa lagu dhawaaqayaa oo cod dheer lagu leeyahay Banaadir waa inay heshaan matalaadeedii waa sax laakiin waa kelmad xaq ah oo baadil loola jeedo wey yaa diidan inay hesho Banaadir matalaadeeda cid diidan ma jirto dastuurku wuxuu qorayaa in golaha sare maxaa la yiraahdaa aqalka sare uu noqdo 54 markii la gooynay anigu waan joog ra'iisul wasaaraha ahaa oo garowa 1 iyo garowa 2 meel ma garanayay mid walba noomay inay ahayd tii garowa 2 ahayd February 2012 waxaa lagu saleeyay waxay ahayd 18 gobol oo mid saddex gobol marka wax waayaya ma jiro gobol saddexdiisii waayayahay ma jiro Banaadir baan waayay Bakool baan waayay Sool baan waayay Sanaag baan waayay marka waxaa la rabaa iyadoo dastuurka lagu dhaqmayo oo la ilaalinayo in gobol walbaaba wuxuu xaq u lahaa uu helo sadbursiyana aan lahayn naaqusna aan ahayn ayaa loo baahan yahay marka waan ka xumahay dadka in laga casaabaadkooda la kiciyo damiirkooda la xoqxoqo la yiraahdo reebel baa diidan matalaadiina gobol hebel baa diidan maya waa la isku qabanayaa waxaan waa sharci waa dastuur waa heshiis bulsho loo baahan yahay qolol baaba inay ilaaliso xamar baa rabaa inay ilaaliso Puntland baa rabaa inay ilaaliso heshiiskaas bulshada lagu yahay heshiiskaas bulsho oo lagu heshiiyay dadka dhaxeeya